السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا meel kasta jirta ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxaan idin tusayaa hal mid baa idin tusayaa waxaan idin tusayaa calankan Soomaaliya inuu idin weeyahay laakiin calankan inaan waxba ku jirin in aanay waxba ku jirin baa idin tusayaa kan Faransiiska iyo kan Soomaaliya waxba isma dhaamaan waxay isdhaamaan oo maanta aad ii sheegi kartaan ma jirto. soo dhawaada sii sheer garay hadii aad muslimnimo iyo nabi maxamed aad jeceshiin nabigiina ku saliya warnabigiina ku saliya oo sii sheer garay Soomaalidu waxay aaminsan yihiin waa calankan diintaad aaminsan tihiin baan rabaa nabigaad aaminsan tihiin baan rabaa nabiga horta ku saliya wixina meesha ku jira nabiga hadaad aaminsan tihiin waa iniga muuqan lahayd ficilka maanta caalamka dhan uu sameeyay ummadda Soomaaliyeedna hal ficil baa laga waayay calankan hadii la gubo ama isku talaab la saaro dhug bay soo oranayaan ilaahay waxaan u maqraanti kacaya in ummadda Soomaaliyeed ay ka qiimeynayso laakiin inaan rasuulka qiimeenay run baan idin sheegaya sii sheer garay inaad kulligiin sheer garaysan oo nabiga ku salidaan mara Faransiiska isku talaab baa saaray Soomaaliya isku talaab baa saaray Turkiga ma saarin sababtaana u saarin baan idin sheegaya Turkigu waa amiirka ummad muslimiinta sababtoo keentay madax baaleediin wadaadaaleediin culumaaleediin Soomaaliya meel laga xusay nabiga oo lulu ku ay oo shalay ahayd oo maanta ahayd ma aysan jirin maantana waad u jeedaa laakiin kan waad qiimaysaa kan ummadda Soomaaliyeed ay waa qiimaysaa soo dhawaada sii sheer garay inaad sii sheer garaysaan isku daya الله إله الصومالي ذا قبيل كتشعلا أو أنا كتشعلا أو قال النمذا كتشعلا أو أنا كتشعلا وأنا كوين أنا آخرين إن الويديني وحا آخرين إن الويديني يا محمد أهرتين اللي وعي با وحا إن الكواي إنكو أمد الصومالية أو بقول كيما بقول مصر الشيكتان هل قبل برع لغا متهرادي وإنكو ريال برعمية كليتان مانت صوماليا مانت هل قبل بالغا متهرادي عالم كأنت مسلمين تدكتو دولتها كهالي إسكت الشعب كمال إنه كم متهربين مجرد مال إنه فرنسيس كعين مجرد إذا كنا واحد أودي ويدين تيك توك هو السوق قويسة فيسبوك هذا هو السوق قويسة ورسيش شرقرية والله هذا عور ريرك شكاني صدق بقول بس شرقرية فيسبوك ريرك شكاني هذا لكن إذا كشكي قصة إذا حنو جنسة وما أنت الدين إذا كوير تاي الله بالله تلاي بقول عافي ميسان ربنا إذا شيء جاي وما تصوماليه nabiga intaad ku salidaan inaad sii sheer garaysaan isku daya Turkigu waa dad muslim boqolkiiba boqol la yiraahdo haddana Turkigu gaal leeyahay laakiin ummadda Soomaaliyeed oo aan gaalo lahayn oo aan kufaar lahayn oo aan kaniisad ka dhisnay
sababta maanta nabi maxamed loogu xusi waayo ma lay sheegi karaa waa maya sababta maanta diinta aynu sheegano oo haysano maxay war sii sheergaray soo qaba ay soo qore caawa haddaan reer hebel ka sheekeynayo wallaahi bilaahi tallaahi 600 baa sheergaraysa xaqiiqda idiin sheegaya xumaatadaana jeceshiin calanka buluuga aan isku talaabta saarana waa jeceshiin calanka buluuga aan isku talaabta isaga faransiiska saarana waa jeceshiin waxba calankan adan idiin qaban maayo run baan idiin sheegaya calankan waa calanka diinta idinku yareeyay waa calanka aad u qabiilka iyo qurunka aad ku weynayseen xaqiiqda idiin sheegaya oo wallaahi oo bilaahi baan kuri haddii soomaalinimo jirto oo muslimnimo jirto oo aakhiro aad ogtiin maanta nabi maxamed oo agtiina lagu caayay war ficil baa inila ka waay ficilka aad samaynaysaan ma aakhira samaynaysaa war ficilka maanta nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam aad u quuri weydeen ummadda Soomaaliyeed idinkoo culimo leh idinkoo aqoon-yahan leh idinkoo siyaasiyiin leh idinkoo wax bartay idinkoo diin wada haysta idinkoo diin ku dhashay baa maanta waxa laga waayay Soomaaliya oo 18 gobol ah ya 18 gobol ah in maanta nabi maxamed hal gobol oo looga mudaharado burca la keenay burco kaliya laga arkay maxaa looga arki waayay Soomaalida kale sababta looga arki waayay maxay war Soomaaliya Kenya joogtaan war Ethiopia joogtaan war dhul gaalo baad joogtaan magaalaatiin Soomaaliya magaala war Ethiopia miya mise Kenya war Soomaaliya ma Ethiopia mise Kenya sababta looga mudaharadi waay maanta maxay tahay sababta loogu muujin waay war dagaal ma jiro war cid dagaalameysa ma jirto faransiiska dagaal kuma soo aadi kartaan kuma la soo gaari kartaan laakiin ficil inaad muujisaan maxaad u sameyn weyday nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam maxaad haddaad jeceshiin oo aad ku istaaqfarlaysataan oo ku taxiyastaan sababta aad u weyneyn weydeen maxay tahay war sababta aad u weyneyn weydeen maxay tahay soo kan ma soo calankan buluuga ama oo xididtu ku taalo calankan buluuga oo xididtu ku taalo Soomaa calanka aan nabi maxamed ku ilowdeen maanta calanka aad aakhiro naarta la gelaysaan Soomaa war muslimada afka laga sheegto ma wadan gaalaan jooga baan kuri page-kayga waa ku jiriya live-kaas sii share garay faransiiska fog baa leeyahay shaydaan nacalad Allah kugu dhacdo todobada samo Allah nacalad ha kaaga dhufto run baa ku sheegaya laakiin ummadda Soomaaliyeed wallahi billahi tallahi boqolkiiba boqol bay diin haysataa laakiin diinta kuma dhaqanto qabiilkay ku dhaqmaan qabiilkay jecel yihiin wax uga sheekeeyay jecel yihiin caawada qabiil idinka sheekeeyo wallahi billahi tallahi 400 baad gaaraysa xaqiiqda idin sheegaya wallahi baan kuri live-kay ka horeeyay 700 baa sheergariyay anoo qabiil ka sheekeeyo sababtaad u sheergaran laadiin oo meel walba uga tuur laadiin maxay tahay sababta annabi maxamed u xusi weydeen maxay tahay war nabi maxamed maanu ahayn kii alla karaameeyay maanu ahayn kii alla u soo waxyoon jiray wax kasta oo ka dhigay muslimiinta iyadoo qabiil isku haystaan oo faqura ah ka dhigay maanta muslimiintu awoodda ay leedahay war awoodda uu leeyahay Turkigu Soomaaliya waa leedahay awoodda muslimiintu maanta Soomaaliya waxa tiraadaan Afrika iska alisa Kenya ka baqay iska alisa Ethiopia iska alisa maxaa diinta ka nusqantii maxaad horumar u gaari weyday maxaad wax u qabsan weyday maxaad u qurux badnaan weyday maxaad dadka uga dambaysaa nabi maxamed beedil haysan xarigiisiba inaad sii share garaysaan isku daya ummadda Soomaaliyeed waxaan u maleynayaa أنا صوّع إن على الله قابت كل شيء كيان ورا هوي كان يداونا يصوّع إنه جودي هو إنه جود كله محد يصوّع قبيل بارتنا كاش قيمة وكبروغا يا رسول والله وكبروغا يا وبالله وكبروغا أنا كم بلوكا نعلى الشيطان كيان أنا هدله وح أنا كبلوكا كفانا أنا كبلوكا وح كفانا صومالي ما صومالي حنيه كم شيء ورحنيها النبي محمد يلون ويدين حيته حنيها ما أنت الصومالية أنا كأود دارتان وديك أود دايسان أو آخره يفوت تتن حيته سببتها النبي محمد فعل ذيك واي محيته ورنا محمد صون نورانية وامية نبي محمد صلى الله عليه وسلم صون نورانية لكن علن كون نوليها علن كون تاجنانية وإن كدم بينايا واتكون دارن دونتان عالم كايدن كوا قونسانيا كان واسكمت علن كان فرنسيسكا لجليه كان الصوماليا لجليه
run baan idin sheegay calan haddaad rabtaan calankaa dhiigga ah ee xidigta ku sawiran tahay weeye calanka run baan idin sheegay ummadda soomaaliyeed nebigiina ku salliya nebiga inaad u hiilisaan isku daya ummadda soomaaliyeed idinkoo awood leh oo aqli leh oo diin bartay oo culimo leh oo caamo leh oo wax walba leh baa nebiga hortiina gaal buuriyadu ku taalo caynaya gaal buuriyadu ku taalo baa caynaya saad waa u jeedaan saad nebigiinni oo aad mar walba qur-aanka iyo atriyaaska iyo wax walba ku jira baad xusi laadiin war sababtaa nebi maxamed maanta agtiina loogu cayay maxay tahay oo ummadda soomaaliyeed looga waayay intaasoo gobol degan gobol ay ka mudaharaado sababta looga waayay maxay tahay war reer burco waxa ay garteen ma garan weyde war muqdisho aaway caasimadii soomaaliya ee 4 malyan deganaayeen 4 malyan baa degan madaxda soomaaliya degan culimada soomaaliya degan war calanka waa ka habartaa iyo calanka balow baan ku saaraya la soco calanka ninka soo qoriyo balow baan ku saaraya ina gubeed dhalay baa tahay calanka iyo nabi maxamed calanka kula qaalisan laakiin waa ka calanka soomaaliya haddaanan gubinna xaaraan baa laygu dhalay gunyahay guntu dhashay calanka soomaaliya maanta nabi maxamed u ilowdeen calanka soomaaliya maanta qabiil u doorateen oo nabi maxamed ugu sallin weydeen oo nabi maxamed u weynan weydeen oo u xusi weydeen oo hal ficil war ficilka caalamka yuu idin arag meel walba yay idin arag laakiin maalinta aakhiro buu kuu galaysaa ficilka nabi maxamed maanta u samaysid ficilka maanta nabi maxamed u samaysid ilaahay baa idinku dhaarshay soomaaliyay ma waxaad garan weydeen nabigiina inaad u hilisaan wallaahi baan kurcaaw haddaad qabiil ka sheekeynayo 400 500 baa igu daawan lahaydeen waa mahadsantihiin dadka soomaalida afkay muslim ka yihiin run baan idin sheegaya soomaalidu afkay muslim ka yihiin calankaasaa u diin ah oo u nebi ah xaqiiqda haddaad rabtaan nabi maxamed waa ilowday calankaasaad ka jeceshiin calankana anugu jeclahay marka maanta calankanaan jeclahay nabi maxamed qofkii wax ka sheega in intaa laga gooyo diinta ku banaanaysa intaa in laga gooyo diinta ku banaanaysa intaa in laga gooyo diinta idin banaanaysa laakiin waa dhayalsateen waxaad ka jeclaanteen waa calankan waxaad ka jeclaateen waa qabiilka waxa aad xushmaysaan oo ka dambaysaan waa qabiilka iyo calankan xaqiiq baa idin sheegaya war salliga nabiga adigoo afka ka sallinaya ficil la samay laakiin ficil xabad ficil ma lihid dameero baa tiin Soomaaliya run baan idin sheegaya maanta caalamka meel aan laga mudaharaadin dawladda aan ka hadlin wallahi bayna u jirin Soomaaliyana waxa laga waayay 2 gobol 3 gobol oo laga hadlo ee culimadu ka hadasho oo dhalinyaradu ka mudaharaado oo maanta nabi maxamed lagu xuso faransiiska ay war inta sayl ka waay war calankan ana hadda ku iri hadana gubin hooyaday biyo foolad Soomaaliya wax boqolkiiba muslim ma jirto afka muslimkati afka islaamkati laakiin islaamnimadu afka ma waa qalbiga idinkama jirto qabiil baa idinka jira waxa idinka jira aad weynaysaan waa qabiil iyo calankan iyo qabiilkaad weynaysaan waayo haddaan qabiil hadda idinka sheekayo wallaahi billaahi tallaahi baan ku 500 600 baad gaaraysaa iyo konton baa igu daawanaysaa wallaahi billaahi tallaahi Soomaalida afka war maxaad sallallahu alayhi wasallam kaliya u leeyahay inaad iskaarsiisaan oo aad ka mudaharaadaan maxaan idin diiday war maxaa idin diiday wadan aaleedihiin baa joogtaan oo xortiin
calankan soo maaha calanka aad idinku rasuulka u haysataan calankan soo maaha calankan buluugga ah soo maaha qabiil baa dhalay qabiil baa iskale qabiil weeye laakiin waxaad ilowdeen godka waxaad la gelaysaan kan maaha خير خلق الله war ilaahay baa idinku dhaarshay calankan iyo qabiilka aad sheeganaysan nabi maxamed ka qiimo weyn wax ilaahay oonkan ku abuuray oo nabi maxamed ka sharaf badan oo nabi maxamed ka weyn oo laga weyneenayo ma jirto laakiin maanta waxaad noqoteen dadka maanta muslimiinta ugu liita Soomaaliya dadka maanta muslimiinta ugu liita wallahi billahi taala kuwa gaala aba arkay waxay yiraahdeen Soomaalidu صوتي أي دين تود أورنجيرين بقول كيو مسلم باناي بقول كيو بقول مسلم باناي صوتي أورنجيرين صوت ما أنت كنتي إن أي محمد أي واحد دقيقة يا واحد تحرك يا واحد حسوسة ونو أكلمبا يا واحد درين أم حيتا والله باكر نما قالها بويدي أو بالله أو الله باكر صوت أي ويدي وحكم ذا وهي أمسيه الصومال إن قبيل الشيطان على كابلوك أنا وقبيل كسب يسيه calanka buluuga inuu qabiil ka samaysan yahay bay aaminsan war caalamka wuxuu idin aaminsan yahay boqolkiiba boqol inaad muslimtiin laakiin muslimnimadiinu waa afka waxba qalbiga idinka jirto runbaan idin sheegaya calankan waad taageertaan waad jeceshiin qabiilka waad weynaysaan laakiin maanta nabi maxamed oo weynan xaq idinku leh والله بالله تالله ما أنت الصومالية قبل لقى متهرادو ونبي محمد لقى حسو والله بانو أرك وبالله بانو أرك برعان أرك برعان ما أنت أركي قبل كتقدير بان أركي ورقبل كمسلمين خاص سميا كنور إنكم ما يدين مسلم هين ور إنكم ما يدين حر هين ور إنكم ما يدين دقات دقنين على كبلوجة ما أنت هدي قبل صوماليا لقوا جبوا ونقبة الرئيس انتقال بقاليسا هدي ويلير لو حلو وحضرنا على كبلوكا ويل لو حلو بالباد ويلي تشيلسن ويلير على كبلوكا سومالنا كوحدي سبب تدور تشيلسن نواقبين سبب تدور نواقبين نبي محمد حاد وين نبي محمد حاد وين ورنبي محمد ما أنت انتقال قادان إذن كمسوا جاي الصومالي لكن صلى الله عليه وسلم نبي محمد كل صليه نبي محمد با waxaad gaarsiin weydeen inaad dareen u muujisaan inaad maanta ninka buuriyadu ku taalo oo nacaybka u qaba muslim islaam u qaba baan u muujin weydeen sababtay ku si shargaraana salaamine hanno salaamaysa qabiil markaan ka hadlayo waa islaantan waa shargaraysan waa dhaxlaysan muqdisho joogtaan Soomaaliya joogtaan nabi maxamed oo hortiina lagu caayay maanta waxaad awoodi weydeen in aad ka kacdaan culimaadeedin siyaasiyiin baa war madaxdiinu dad maaha madaxdiinu waa qabiil wax ay yihiin malaha waa mariyo ilaahay baa idinku dhaarshay naarta inaad galeysaan ilaahay baa idinka celin kara nabi maxamed waa ninkii naarta idinka celin lahaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waa ninkii yiri ummadayda maantana hal ficil buu idinka waay war dadnimada aad sheeganaysaan maxay tahay war qabiilka waad weynaysaan calanka Soomaaliya waa ka hadana hortiina ku gubina hooyaday biye forot runbaan idin sheegay calanka buluuga soo kama calanka maanta nabi maxamed loo xusu waay oo maanta loo weyneyn waay oo maanta caalamka meel aan laga kicin ma jirto Soomaaliyana meel laga kacay ma jirto Soomaaliya meel isweydiisay ma jirto meel laba qof oo ka hadlay ma jirto inna lillahi wa inna ilaihi raaji'un war ummadda Soomaaliyeed xagee lagu wada war adeer anagoo qurba joogna oo wadan gaalo joogna baan wallahi billahi tallahi baan ku diinteeda waa ku dhimanaya ilaahay maxamed sameeyay baan ku dhaartay waa ku dhimanaya diinteeda inaan laga bedeli karin laakiin maanta idinkoo wadankiina jooga oo xor ah oo deegaankiina degan baa maanta nabi maxamed ficil u sameyn weydeen
والله آذان قحمة وبالله آذان قحمة كان هدي واحد لقوا سمي دق بارنسا كان هدي واحد لا يلا دق بارنسا صومالي باتين قبيل باتين هير هبلادي واحد يلا تقال باقليسا وركن على الورد انت نبي محمد بالورد انت إنا لله وإنا راجعون والله بانكر نبي محمد قفك وأفل قادي أو عاية والله بالله تالله بانكر إن كن تجيس قرآنك الله يكون قرانته لكن ما أنت واد اللودين ما أنت واد اللودين واحد شيءتين قبيل واحد شيءتين على كابلوكا واحد حيسي صار علنك واحد وين صار علنك لكن علنك يا علنك واسو كيمي لبضوا بلاس بان صار والأرك تامانو مرانيا علنك يا علنك كنوا فرانسيسكا كنوا الصوماليا لبضوا بلاس بان صار runta idin sheegaya dhoom baan leeyahay labadaba dhoom baan leeyahay calanku hadduu janno i geynayo dhoom baan leeyahay calanku hadduu janno ii hayo wallaahi calanku hadduu janno i geynayo oo janno i seexinayo oo nabi maxamed aad horteeda lagu caynayo aan ficil sameyn waayo anoo xorriyad haysta oo waddankaygii jooga anoo qurba jooga baan xorriyad u haystaa inaan nabi maxamed u dagaalamo nabi maxamed aan aflagaadada la gaarsiiyey inaan ka jawaabo oo wallaahi baan kura haddii lay xidhaayo iyo haddii lay dilaayo iyo haddii lay tuuraayoba diyaar baan u ah laakiin maanta waxaan moodaa ummadda soomaaliyeed ummadeenni maaha ummaddii nabi maxamed uu ka tegey maaha ummaddii nabi maxamed uu ka tegey maaha waa ummad qabiil u taagan waa ummad qabiil uu naarta ku celinayso innaa lillahi war naarta ma qabiil baa idinka celinaya naarta ninkii idinka celin lahaa waa kan sala allahu calayhi wasalam ninkii naarta idinka celin lahaa waa kan sababta uu maanta hadda alaabtii baa la tuuray alaabihii baa la qubay meel walba oo caalamka uu geen jiray faransiisku war idinkuna ficil baa oo dameeraatiin dameer waxba ma dhaantaan xaqiiqdaa idiin sheegaya dameer waxaad maanta dhaantaan ay jirto maba jirto ummadda soomaaliyeed waxaa u sheegaya calankan iska tuura nabigiina madaxa saarta diintiina aamina wallaahi bilaahi tallaahi baan kan waa lagu naartegaya dad badan oo dad laayay ama maanta ku socda inay kaa wax ku noqdaan wallaahi naar bay tegayaan oo bilaahi naar bay tegayaan oo tallaahi naar bay war culumaa leediin culumadiinu ma hadasho shiikh baa leediin shiikhdiinu ma hadasho ilaah baan ku dhaartay kan wuu idinla weeya laakiin aniga ilama weyna run baan idiin sheegaya ilama weyna wax uu ila yahay ma jirto laakiin maanta waxaan u malanayaa calankan inuu maanta meel kastoo caalamka uu ka barakaysan yahay oo laga aaminsan yahay waxa uu horumar ka gaarayna calankaas dadkiisa iyo diintiisa iyo dalkiisa uu garab istaagay laakiin calankan wax uu garab istaagay iyo wax uu inoo qabtay iyo wax uu inoo sameeyay midna ma jirto oo waayo maantan waxaynu aamini weyn oo ka jawaabi weyn nabi maxamed oo horteena lagu caynay adina sheer gareysaan maalinta habeenkan qabiil ka hadlaya 400 500 baad igu daawataan qabiilkaad jeceshiin wallaahi baan ku leeyahay 700 oo qof ii sheer gareysaan 700 oo qof oo qabiilka 700 kuma jirin ma wax ka sheegay qabiilka waa taageertaan hadda qabiil idinku bedelo wallaahi billahi tallaahi caawna dhug baa 500 baad gaarsiinaysan leefka 500 baad gaarsiinaysan laakiin haddaan xabiibkiina idin leeyahay garab istaaga maanta wuxuu idinka baahan yahay maanta nabi maxamed isagoo aan cidna u baahnay oo maanta jannadii uu joogo oo la hubo oo maanta gaal yaroo buuriyo dheer uuna waxba ka qaadayn xumaataduu yiraahdo laakiin ummadiisi aaway yaa ummatu maxamed aaway ummadii nabi maxamed tiidin miya maxaad u sheegataan 100% baana 100% baa muslimna sababtaad u sheegataan maxay tahay ummadii nabi maxamed ummadii nabi maxamed u shafaaca qaadi ummadii nabi maxamed naarta ka celinay maanta ficil yar baa sameyn laadiin aad baan uga xumahay madax baa leedihiin siyaasiyiin baa leedihiin dawlad baa samaysateen horumar baa samaysateen innaa lillahi wa innaa raajicuun war maanta ma gobol laga mudaharaado war gobolkaa burco oo somaliland ku yaala maanta waxay garteen baa ummadda soomaaliyeed oo dhan garan weyn ummadda soomaaliyeed oo dhan oo sheekh iyo sheekh shariif leh
شيخ يا شريف بله إنا لله وإنا راجعون هدبا علنكن يا علنكن وحبا اسم الدامان وحي اسلامان والله بالله تالله بين وجه والله بين وجه وبالله بين وجه من ناركم كنا نار بوصدا كنا نار بوصدا نينك كان آمسن يا كان نار بيجلايا أو sababtii ku galayaan maxay tahay nabigoodii oo la caynaayo oo wax walba laga sheegayo bay wax ficila hadii maanta calanka aan gubo oo hortiina ku gubo wallahi billahi tallahi baan kuri laba kumba iscunaya oo qof oo qaari caayaya oo qaari habaaraya oo qaari maagaya soo saasma maanta qabiilku waa idin weeye maanta qabiilku waa idin weeye laakiin xabiibkiinu idin lama weyna كان بدأ أنا وأنا بنام أوكي أرهب المغلى هلا أنا كان سيف عم هو مغلا وناكسن أنا كالصومالي سكان ما ها والله ساس لي أنا كالصومالي أنا الصومالي ليه لكن ما واديه كرتا waxa weeyde qof xor ba tahay laakiin ugu calanka Soomaaliyeed waa calan ummad islaami leedahay weeye waa calan muslim weeye waa calan ilaalinaya muqaddasaadka ummadda tan diintoodu kamid tahay nabigoodu kamid tahay kamid yahay ma garatay marka anda weydiinaya ummadan Soomaaliyeed ee boqolkiiba muslimka ah hadii calankan uu sharaf iyo ciise u hayo uu in ilaalinayo sababta maanta Nabi Maxamed isagoo la caay oo markii labaad iyo markii saddexaadba ummadda Soomaaliyeed ay hal tuulo hal degmo caasimada meel walba uga mudaharaadi weeyeen maxay tahay ina haysta yaa ina haysta niyo hal mid baan ku sheegayaa calanku horta waa maro calanku wuxuu u baahan yahay dad oo spiritual leh oo dameer leh oo kaca oo calankii qaata oo mabaadi'dooda ku difaaca oo diintooda ku difaaca oo nabiga kaleey salaatu wasalaam ku difaaca marka calamku wax dambiye ma laha hadda adigu waxaad xaq u leedahay inaad calanka soo adiga hadda maadaama nabiga difaacaysid nabiga rasuulka kaleey salaatu wasalaam maadaama difaacaysid xaq baad u leedahay inaad calankaaga ku difaacdid oo dhahdid waxa weeyaan muwaadin Soomaali ah islaam ah waxa weeye yaa ku difaacaya islaamnimaha Soomaalinimaha gelin islaam baan ahay muslim baan ahay muumin baan ahay Nabi Maxamed waxaan ku difaacayaa muslimnimada aan ahay calankan Soomaaliya calan nabigu inoo sameeyay oo inooga tagay maaha waa calan inagu aan sameeyay dhageyso dunida feerikan turkiga hadda ku xir oo wajiga saaratay dhageyso haddii maanta calanka Soomaaliya lagu gubo qofka xabsi daa'im ku galaya ama waa la dilaya laakiin ummad Soomaaliyeed oo dhowr iyo 10 milyan ah oo 20 milyan ah bal sababta maanta dhageyso walaal halkan dhamaysto sababta maanta loogu waayay Nabi Maxamed oo hortiina lagu caay oo lagu aflagaadiyay hal ficil u sameyn weydeen maxay hadda ummadda adaaba kamid ah waxaan ku yiraahdaa adiga ummadda kici adiga calankaaga qaado waxa weeye ugu dagaalan nabiga ku difaac hadda calankan turkiga nabigu ma sameyn fiir calankan turkiga hadda wajiga kuuga xarban nabigu ma sameyn jaahil baa tahay qabiil kan waa qabiil kan qabiil maaha kan qabiil ninkii ugu horeeyay ee Faransiiska caay ee yiri waa waalayahay hal la geliyo isbitaal hal la geeyo mana shaqeynayo safaaradii laga tuuray turkiga oo kula Faransiis turkiga laga xiray baa waxa leedahay kan rag baa kan dumar baa marka oo ummadda maanta aad dagaal gelinaysid soo ummadda adigu shalay kala qaybinaysay ma aha qabyaalada oo kala qaybinaysay soo maahan horta ummadaada miday waxa weeye mabaadi'dooda guud iyo calankooda iyo diintooda iyo marka boorta ka hada laakiin wuxuu uma baahneen in ma garanayso emotional oo iska loo hadlo ummadu diin aan hadda ku sheego ummadda Soomaaliyeed ma garanayo laakiin qabiil aan ku sheego aragtida shabaab weeye hadda aragtidaas walaalkay dhageyso laakiin haddaan qabiil ku sheego ummadda Soomaaliyeed reer walba qabiil baan ka dhigi karaa cid walba qabiil bay sheegtaa laakiin Nabi Maxamed oo hortiina lagu caay baa waliba la soo indha adag tahay adigu muus sheeganaya calankaaga qaado war calankan
كر هذا نقبايا كدفاع لا وراني كنت كدفاع دفاع بان ما كوري مسلمين كنت دفاعيا مدة كله ومدة الصومالية الدين ما لبعت تري ومد جاهل او قبيل امنسن علن كان وكان قبيل في النقليه وكان نبي محمد انو الا ولدت علن كان كان قبيل ما لها امد قال اباله لكن كان قبيل باله افنت نبي محمدنا واد الا ولدت انا لله وانا راجعون انا لله وانا راجعون والله بالله تالله اللي وضع ما قرنيو بل هذا ردان قبيل كشيكينيو 500 600 باد كاريسان 600 500 باد كاريسان عاو أنا محمد دفاعي أو أن شايل عن أقبو يو مرجو أن دريمي أن كدريمي أمد الصومالية إن عليه إن أنا ما أنت وحبا أهين ده النعم وعايسة نبي أخص النعم هذا عايسيد غير باد دفاعي غير هذا كشيكيني كهذا يكون دقيسة لكن نبينا إن أنا كدورتان قبيل كدورتان الله آذان أقول معي والسلام عليكم. وعليكم السلام. warniyo horta inaad aad baan ku salaamayaa arrinka aad maanta ilaahay ka dhawaajiyay ee aad ummadda ku baraarujinaysana khayrkeeda iyo wanaageeda ilaahay waa ku waafajinaya niyo anigu horta reer burcaanay kowdhe صح annaga niyo magaaladeedii ilaahay waa waafajiyey inay diinta ay ka dhidhido oo ninkaa nabiga caayay laga mudaharaado oo calankii faransiiska lagu dhex ugu burco laakiin waxaan la yaabanahay dee caasimadii ummadda soomaaliyeed ee la odhan jiray meesha dowlad baa ka dhisan waxay ahayd hadduu madaxweyneheenu yahay madaxweyne islaama oo diin haysta inuu madaxweynaha faransiiska caayaabay ahayd sida madaxweynaha islaamka oo kale sida ninkan calankan labadaa calanaya kuu kala suranaya kaa buluga iyo kaa casina waxay ku kala guulaysteen dee midna hogaamiyaheedii baa seexday midna hogaamiyaheedii baa diinta difaacaya sidaa daraaddeed madaxweynaha islaamka iyo calanka islaamkaba kaa turkigan anagu waa aqoonsanay waayo maanta waxaa laga yaabaa calanka soomaaliya haddii lagu gubi lahaa hargeysa in muqdisho o dhan laga mudaharaadi lahaa garow laga mudaharaadi wiil yar baa maalin lagu xira hargeysa wixii ka dhacay baan ogeyn social media la qabsaday meel walba waa laga aytamay waa xawaalo socday laakiin maanta waxaa la waayay laba qof oo meel ku isugu yimaada oo nabi maxamed u qiirooda nabi maxamed difaaca afkooda kaliya ku difaaca horta waxa ayaan darro uu aad iyo aad u weynaa dadkii baraha bulshada ka qaylin jiray ee qabiilka u qaylin jiray ee maaragtay marar la gubo u qaylin jiray inaan maanta qof xataa dadkii baraha bulshada caanka ka ahaa keligaa baan arkay nin nabi maxamed wejiga kusoo qortay oo maaragtay u doodaya allahuma salli calaa xataa xamar oo keliya ma ahe magaalooyinkii kale garoowe hargeysa magaalooyinka dadkii ku nool oo dhan baan dhaleecay ummadda Soomaaliya hadda biri haddaan qabiil ka sheekeynayo 500 600 bay ugu daawadaan been kuu sheegi maayo waan ogey caawana maxay ugu daawanayaan 200 bay dhaafilayaan laa ilaaha illa allah maxamed rasuulullah laa ilaaha illa allah maxamed laakiin ninkii imaka iga horreeye baxay waxaad moodaysay inuu calanku kala weynaa nabi maxamed calayhi salaam waaba calankaada soo xiro war calanku ma diinba calanka ma nabi maxamed baa keenay ma ilaahay baa soo dejiyey waa maro تدونتابا لا قادن كرا ساعد لا دونا لا بدلي كرا انا calanka muslimiinta calankan aan aqaana been ku sheeg maayo calanka وانا اسرع حتى فيري تركي oo dhan wada muslima wax gaalo iyo muslim isku jira hadana muslimka power فيري Soomaaliya oo boqolkiiba boqol ay musliin sababta maanta power la'aanta ka dhigtay anigu ma garanay meel kasta ay tagaan maxaa sababta keentay maxay وعلنكن أنا أقول شيء واحد باور العادة كده عمل واحد صور العادة كده عمل نيو ما واحد مودا مالك الطبيعي إن الإسلام نمدي كسي ويق ما يصدق الصومالي ده هو قبيل كيبا دينتي بكوين رير كنيك مركز دينتي سلعاية مركز رير كسلعاية مركز رير كسلعاية عرونا مركز دينتي سلعاية من النبي سمع عرونا والله ما كل عاوة هدي عن رير كشكينا أنا بقول أنا بأركي 500 600 intii ku daawadaan bay caawo dhan waa iscunayaan kaayada ku dhageysan waxna iga qaadi maayaan laakiin caawo annabi maxamed jacayl iyo
محبو أنا قبا أنا قربت شو فرانسيسكو حبيت يجري أو والله ما كل ما أنت فرانسيسكو ولا مطالع هل قف أو الصومالي كمجري هل قف أو الصومالي والله بن وجر وبالله بن وجر والله بقول وبالله بقول سمع إلهي من هل قف أو الصومالي عرب باكستان بنغلاديش ودمو يوروب انت مسلم حتى waxay nagu filayd imika wadamada carabta oo dhani ganacsiga faraska joojiyeen hadduu oran lahaa madaxweynuhu xitaa waraaq ka soo baxda madaxtooyada oo lagu shaaciyay in lagu joojiyay wax ganacsiga faraska imaada ama meel wax calaaqaad faras lala leeyahay inta miyaa awoodi kar way farmaajo ama dadka war barbaajaal gayd waa hal shakhsi ummadii kale aaway muslimada sheeganaysa ummadii kale ee ummaddu waxay ahayd inay iyagu kacaan musabixi Somaliland maamula burco isaga maamula hargeysa lagama kicin burco waa laga kacay sababta macnihii muslimiin deeqadooday oo dareemay baa hadlay laakiin musabixi burco kaco oo nabi maxamed daaraa waa runta qodobkaas waa muhiim marka waxa leedahay dadka ku xidhan tahay qofka hadduu nabi maxamed aaminsan yahay cid ka celinaysa iyo cid ka celinaysa ma jirto laakiin dadka Soomaaliyeed aan ka soo jeedo kanay aaminsan yihiin kana hortiina hadaan ku gudin hooyada biyo foolad war aadan ku salaamaynaada hay marka ninka reeb waa hadli karaa waayo waa nin dadkiisi uu ka soo jeeday ay dareemeen foolxumada Faransiisku ku dhaqmay diin xumada Faransiisku ku dhaqmay aflagaadada nabi maxamed u geysay sallallahu alayhi wasallam war nabigiina intaad ku salisaan 200 baad ku jirtaa intaad sii sheer garaysaan nabigiina ku saliya siina sheer garaya iska daaya calankan dad badan baa ka xun calankan markaan arkeen balaaska saaran oo kana saarnaan waayay laakiin saashaas ana idin sheegaya calankan waxa uu hormuud u yahay ummadda muslimiinta oo dhan war sacuudiga baa dawladdiisu hadli weyn oo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ku aasan yahay shacabkii sacuudiga kacay bal ilaahay baa idinku dhaarshay firi war dawladdii sacuudiga oo ilaahay karaamayay oo ilaahay quruxda iyo haybada iyo hantida iyo sharaftaasi oo nabi maxamed ku aasay oo xaramkii yahay maanta sacuudigu wax laga kacay ma jiro wax dawladda oo sacuudiga ka jirta ma jirto waa wax Mareykan uu dabada ku haysto wax Mareykan iyo gaalo ay haysato way laakiin maanta ummadii Soomaaliyeed ay boqol musi sheeganaysay ee wadankooda iyada xorta u ahayd maanta nabigoodii way dayaceen aad baan uga xumahay wallahi billahi tallahi maalinta qiyaamana waa idinku marxaanti furaya ilaahay waxaan ku dhaartay inaan idinku maqraanti furo oo iraahdo boqol baan sheegan jirnay muslim maalintii nabi maxamed la aflagaadayay indhaha noo surugana annagoo eri karna inaan afkayga ugu hiilino aadan ugu xumahay wallahi walaalka ka qaad alaykum salaam sii sheer garaya wallahi aadan ugu xumahay ummadii Soomaaliyeed qabiil baa ku jira laakiin xabiibkoodu way ilaaween calan baas oo dhiig yacab ah oo dadka lagu laayo oo dadka lagu qabyaaladeeyo bay aaminsan yihiin laakiin calanka iyo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam nabi maxamed baa horeeyay xaqiiqda hadaa rabtaa calanku waa shalay mar la sameeyay nabi maxamed maaha mar la sameeyay shalayna ma uusan iman runbaan idin sheegay ummadda Soomaaliyeed maanta calanka waad ka dambaysaa qabiilka waad ka dambaysaa bal habeen dama qabiil idin muusika qabiil ah idin saaraya bal istaa isku cuntaan fiiri war bal saad isku cuntaan oo u sheer garaysaan sacuudigu cabsanaya turkigu muxuu cabsan waay turkigu sababtuu cabsan waay maxay war turkigu sababtuu cabsan waay maxay tahay sacuudigu sababtuu cabsaday maxay tahay inna lillahi wa inna raaji'un war shacabkiisiba hataa muujiyay shacabka yaa la hadlaya sacuudiga shacabkii baa muujiyay shacabka Soomaaliyeed baan haystaa ee boqol sheeganaya muslim baan nahay muslimaan ku dhimanayna waa ku dhalanay allah la ilaha illa allah muhammad rasulullah afkeenu ka sheegana
ilaa muslimnimadaba afkeenu inaga taala inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun war ummadda sacuudigu dowladdiisu hadday baqdo ama maraykan ay dabada ku hayso shacabkiisaa ficil muujiyey shacabkiisaa muslim ah laakiin ummaddii soomaaliyeed muslimka ahayd aawo ummaddii soomaaliyeed ee muslimka ahayd aawo ummaddii soomaaliyeed ee boqolkiiba boqol lagu sheegayo muslimka aawo manne maxamed bay u hiilin waaye oo afkooda ugu hiilin waaye inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun wallahi aadaan uga xumahay ka leexo ummadda maryan ummadda laga leexanayo waa ummaddaad adigu halagtay waad ummaddaad qabiil ku taageertid habeen walba qabiil baad taagantihiin calan buluuga oo xaaraan ah oo dhiigyacab ah baad aaminsantihiin ma aaminsana anigu nabi maxamed baan aaminsana waxa uu ina faray baynu haysanaa isagaana berri noo shafeeco qaadaya isagaana naarta naga celinaya laakiin ballan ilaahay waxaa tahay xaasi calankan qabiilka ah baad ka sheekeynaysaa calankan qabiilka ah aniga ma rabo run baan idiin sheegay nabi maxamed baan rabaa nabi maxamed baan jecelaha nabi maxamed baan muxubbo iyo farxad iyo jacaylba u haya calankan xaaraanta ee dhigyacabka uma hayo calankan qabiilka uma hayo adeer nin walba laba taako adduunyada ku leeyahay laakiin labadii nabi maxamed maray dadku inaanay marayn baa moodaa dadka nafta in loo deynayaa moodaa soomaaliya dhoon anigaa leh soomaaliya dhoon anigaa leh faransiiska iyo soomaaliya waa isku mid waxay isdhaamaan ma laha maanta muslimaad sheeganaysaan soomaali baad tihiin muslimaad sheeganaysaan calankiini waa ka balaas saara calanka meeshaad aragtaa balaas saara calanka ilaa calankaa nabi maxamed ka weynaaday sababtaa idin layahay waxaa ka mid ah nabi maxamed oo hortiina lagu caayay baa ummadda soomaaliyeed oo dhan laga waayey 200 qof oo u mudaharaada war gobolka burco rag baa jooga ummad baa joogta muslimiin intay garatay ma garan weydi waryahay oran gun yahay guntu dhashay waryahay oran gun yahay guntu dhashay waryahay oranin ima oran kartaan ilaahay naarta idinku fogay inta nabiga ku saliin inta nabiga jeclaan inta nabiga u mudaharaada ilaahay naarta idinku fogay ana hadda idin leh intaan dareemin dhibaatada nabi maxamed lagu hayo iyo aflagaadada lagu hayo isagoo mootan nabi maxamed maanta wuu mootan yahay qof kasta oo adduunyada ku xanta ama ku maagana aakhira looga jaraya laakiin ummadda soomaaliyeed bilaa ficilka ah aygaba bilaa ficil baa loo cadaaba haddaan bilaa ficil idin cadaabin waad arki doontaa sallallahu alayhi wasallam waa ku salinaya magacaysu halkaas igu qoran yahay waana igu qornaan doonaa ada faransa inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun waa kuwa qabiilku dilay ee qabiilku naaxay ee qabiilka weyneynaya ee calanka buluuga weyneynaya waa kuwa inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun inna ilaahay baan kaa hoos galay haddii calankana kula weyn yahay oo aad meesha u soo gashay inaad calankan aniga yimaagtid ilaahay baa idinku reebay qofka aaminsan kan ee nabi maxamed aan aaminsanayn war kan muxuu yahay waa mara la sameeyey nabi maxamed baad maanta ficil u sameyn weyday hataa media wallahi waxaan galay tiktok snapchatka telegramka wallahi waxaan ka waayay oo billahi waxaan ka waayay qof nabi maxamed dartii u ilmaynaya ama dartii hal saacad u hadlaaya kuwa qabiilka la arkay oo madaxweynaha ka sheekeynaya oo ka sheekeynaya ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada ariya ilaahay yaqaan adeer mahabar gidir baad adeer qabiil ma yihi caawo kale qabiil ma lihi run baan idiin sheegaya soomaali ma yihi calanka aad sheegaysaa soka war soomaali ma yihi caawo kale muslim baan ahay islaam baan ahay run baan idiin sheegaya caawo islaam baan ahay caawo haddii aan dhinto islaamnimo ku dhimanaya caawo haddii aan dhinto muslimnimo ku dhimanaya wallahi weeso salaad maghrib baan tukaday weesadii ma qaba caawo haddaan dhinto qabiil ma yihi caawo haddaan dhinto baan kuli wallahi baan soomaali u ahayn muslim baan ahay laakiin ilaahay waxaan uga bariyay ummadda soomaaliyeed ee aan nabi maxamed niyadooda ku soo dhicin
ficil yar u sameey ficil yar u sameey war markaynu isxamanayno oo iscaayino oo bal halkaa inoo dhiga bal mar runtay timi runtay timi dir waa laangaab yaasiin bal waxaa bal fiiri bal dir buu ka sheegay or dir ma ihi anigu caawo surre ma ihi war midna ma ihi qubays ma ihi dir ma ihi been idiin sheegma soomaali ma ihi baan ku yidhi wallahi baana soomaali u ahayn caawo run baan kuu sheegaya calankaas soomaalinimada ku sheeganaya waa kaa mana kala jecli caawo wallaahi bilaahi tullaahi baana u kala jeclay labada taako lay gelinayo wallaahi baanu iga celinay labada taako madaxda aad sheeganaysaan iga celmayso qabiilka aad sheegaysaan iga celmayso ilaahay hadduu idinku salliday kan aad aaminsantihiin nabigiinni hortiina lagu caayay ficil yar inaad samaysaan wallaahi bilaahi dhegtiin way dhimatay war ummadda soomaaliyeed wallaahi baan ku iri caawa maanta waxaan arkay niman gaala ah wallaahi baan ku iri waxay yidhaahdeen soo tii la oran jiray ummadda soomaaliyeed 100% waa muslim sababta ay uga mudaharaadin waayeen faransiiska maxay tahay wallaahi wax kale ma oran sababtay faransiiska uga mudaharaadin waayeen soomaaliya maxay tahay war fiiri war waxaan waa la soo ogyahay waa la daawadaa facebookada youtubada waxa ummadda gaala iyo muslim way isugu jirtaa laakiin waxa ay la yaabeen ama ajnabiga kale oo muslimka ah ay la yaabeen ay awal lagu faanin jireen ama awal lagu soo dhaweyn jireen soomaaliya 100% waa muslim soomaaliya 100% waa muslim laakiin soomaaliya 100% waa muslim laakiin kana la weyn muslimnimada iyo kana weyn kan iyo kan waa isku mid maanta haddii calan la yiraahdo kanaan qabiil aqoon calankana waddankiisa u dahalgama calankana waddankiisa daacad u ah xaqiiqada rabtaan laakiin diin buu lahayn kan oo diin leh baa wuxuu u dhaqmayaa sidii calan aan bilaadiin ah dadkiisu bilaadiin yihiin sababta calankan uu ugu dagaalamayo oo cid walba oo caalamka diinta ka hor timaada uu hormuud u yahay maxay tahay war sababta turkigu uu hormuudka u noqday maxay tahay turkigu hataa gaalo leeyahay bal idinkoo aan kaniisad idinka dhisnayn hal gaala sheegan baa maanta nabi maxamed hortiina lagu caay waa soo cabti soor aad aan wax maan kaysi aad baan wax maan inaad haddaan soo cabbo ama cabaayo nabi maxamed magaciisa kuma qorteen inuu gubeed ku dhalay run baan kuu sheegay marka dadka qabiilku dilay ee laangaabka ah ee wargaal wax ma dhaantid gaal waxba ma dhaantid oo wallaahi baan ku haddaad qabiil aaminsan tahay oonu kugu jirin nabigaaga inaad ku salidid qabiil baad ii soo qortay adigoo nabigaaga ku saliyin qabiil baad ii soo qortay adigoo aan nabigaaga ku saliyin okay taas maxay caddaynaysaa nabi maxamed baan ka sheekeynaya wanaagiisaan ka sheekeynaya ilaahay waxaan leeyahay qof karaameeyey oo nabi maxamed ka fadli badan ma jirin run baan idiin sheegaya qof ka fadli badan ma uusan marin adduunyadan ma soo marin mana soo maray maxaad rabtaa marka ma soo marin mana soo maray laakiin waxaan u malinayaa caawa dad baa ka caytamaya anigu inaan dad caayo caawa uma soo gelin magaca ku qoran wejigayga sallallahu alayhi wasallam xabiibkaygu weynaa ee aanu hayo xushmadda iyo wanaagga iyo jacaylka laakiin dadka qabiilka ku qafilan yahayow oo aan markaan waagaan dee aan bahdili jiray iyaga iyo reerkoodaba wallaahi bilaahi tallaahi caawa inaan u jawaabo ma rabo waayo caawa ilaahay waxaan aaminsanahay hadalkan ku hadlayo hadal saxa inuu yahay waayo qabiil haddaan ka sheekeynayo waa raxaynaysaa qaybi way taageeraysaa qaybi waa caytame qaybi waa socune laakiin caawo kale wallaahi bilaahi tallaahi hurdadeedu waa kalayl waa toos dirito laakiin waxaa idiin sheegayaa maanta soomaaliya lama oran karo 100% waa muslim muslimnimadu afkoo laga sheegto maaha quluubta oo laga aamino nabi maxamed oo aad difaacatid diintaadoo difaacatid war idinkoo soomaaliya jooga oo waddankiina war hataa qurbaha kuwa jooga ma waxay waayeen war kamuunaha la tagaa
والدولة لا تشرع واحد اللي لها أدرى مظاهراتنا متصاصة جرتا والله بان لو جديدين والله بان كل كوا ساك كونا كمناطق والله بان كل تاني كريه شخص معوق بان كرا أنا والشخص يبان محان قبان كرا وحما قبان كرا والله بان كل وبالله بان كل إلهي بقى إجا هذا السنة وحن آمن وأنت آن إلي ويل إنه كمونها تغنو ونحن وحرمنا مطهران إلى الله بقى تمويل بنا والله بالله طلاه نول بقيس مكبح نول بقونيس أبح وايو دي لما وين بقى وحن باللما وين دين تن الأفلقادية نبي محمد وحلاق الشيء كم وين بقى وايو وعكول قبيل وحلي هذا قبيل وحلي هذا أنا كالصومالي نيك سوق قريو بلوغ بانكو ساريا برهان بلوغ بقادة نسا وايو أنا كالصوماليا هدي لي أنا هان إيجا محيكتي أنا وجهي كسو قرطي أنا كروس ساري بل أديك صح صار بل أنا صح صار واقن أنا كان دينتا قد دقالما أي دينتا عيرتي أنا يا قوسن ضعيف دلي عيرتي أنا يا قوسن ضعيف دلي دينتيدا وأودي ماني هدي ودنكي اللي يقول علناي ضعيف باطي عيرتي أنا يا قوسن أدير عير كنول ميه آد بانا قوحو ماهي وايو عيركو أنا لحدة دي اللي حاد قبا أو الشرعي هايستا يا إن أنا آمنو عير بالله يا قوسن يا ودنكاقي باللقو علنايا وحاس يقوم قفلنا أدير حقيقة كو شيغايا حقيقة كو تابسينايا لكن أديكو ضعيف كان كجيرا يا نبي هورتادا لو عين war maanta Faransiiska waxa ka mudaharaday ajnabi oo dhan waxa laga waayay saddex qof oo Soomaali ah laba qof hal qof bal yaa oran kara kuwa Faransiiska jooga igu jira yaa oran kara Faransiiska maanta mudaharaadkii Soomaaliya ku jirtay yaa soo qori kara yaa soo qori kara maanta mudaharaadkii ka dhacay Faransiiska waa la yaabay yaa oran kara Faransiiska laga mudaharaad Soomaaliya ku jirtay yaa oran kara ma jirin wallahi bin ugu jira وبالله بين وجه والله بالله تالله ما أجنبي أردن بمدهرادي بنجلاديش بمدهراديس تركيا بمدهراديس عرب بمدهراديس والله بنقول وبالله بنقول تركيا ماشى شفت يا عرب يا بنجلاديش يا السعوديان والله بالله تالله بمدهرادي لكن هل قف الصومالي الصومالي لو ودم يجبتها وإيطاليا يا فرنسيسك هم بني دي شيء والله بنقول إيطاليا يا فرنسيسكا الصوماليين وبنت شرملكا واحد يربع جوا أو مكوبابا أو بيرها سجيتشي أو نرشة بكناس لكن لبدا ودن السودوية اللي بس سنة صدق السنة نور يكون نولدان وا إيطاليا يا فرنسيسكا إيطاليا الشرق بيكاتا فرنسيسكا ويدقال عدي اللي أقوله لكن ودك فرنسيسكا الصومالي وبضيع أوركرا الصومالي ما له بديع والله ما أنت لبقف بالجواي هل قف بالجواي أو ضد كراع مظاهرات والله بالله تالله أمة الصومالية وأبقي والله وأبقي أمة الصومالية حق الشيء يا حقيت شو كتاب إلى هاي ماشان شوكو إذا البوقتهاي فيسبوك يقولون كسم يسني هاي حتى عرفت ماشان شوكو هنا دلوقتي لكن هنا دوحان عام السنة هاي ضد مساكين ما قررنا الساعة وأحبا عن شيء مسلمة دو كوير تهاي هنا تهاي الصومالي كريستانا ويجران أو قربها شوكتا لكن أنا قوة على ما هالله الصومالي ده مسلمة ده الشيء ناس بقول كيف بقول مسلم بارناي الصومالي ده قربها شوكتا لكن وحي آمسين وح قبيل ليراد وح قبيل ليراد بي آمسين علن كبلوغة بي آمسين لكن علن كان لبب وح يربو إيكرا سوكيا
wuxuu kala sokeeyaa kana waa muslim baale kana kristan baale intaas uu kala sokeeyaa intaasaan maanta ku wataa been idin sheegi maayo intaasaan ugu soo qortay meesha kana kristan baale kana muslim baale laakiin muslimadu sida aad moodeen maaha soomaaliya muslimadu afka laga sheegto maaha soomaaliya wax la yiraahdo ma jirto soomaaliya wax la yiraahdo ma jirto wax diin maanta ku dhaqmaya ee maanta intaasoo ummad ah ee nebigooda ku sallin waaye ee nebigooda u hiilin waaye waa soomaali hal gobol baa laga mudaharaaday burca laga mudaharaaday soomaaliya intee gobol waa gobolka togdheer gaar ahaan magaalada burca laga mudaharaaday soomaaliya sababta loogu mudaharaaday ma sheegi kartaa sababta soomaaliya isha ugu daawanaysa ma sheegi kartaa sababta madaxda dhan ay u ogtahay ma sheegi kartaa warniyo aad baa idin salaamayaa life ka ku sii raagay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waa jecel lahay waa xabiibkeeni waxaana ka xumahay ummadda Soomaaliyeed murugada iyo dhibka iyo culayska haysta waxa kamid ah in aanay xilba iska saarin nabi maxamed horta lagu caynayo war ficil iyo hadal aad geysataan waa sid maalinta aakhiro buu ku qoraya laakiin ma aydin ogid qabiil baad ogtihiin qabiil baad taqaaniin calankana taqaaniin calankan laakiin janna ay saaxin maayo labada taako la igu duubi maayo labada taako kan haliyay buu ahaa taariikh buu leeyahay calanka lagu duubo wallahi billahi talaahi qabriga laba habeen markuu ku jiro buu ka dhamaanaya kan laba habeen baa ku kan lagu xuso oo lagu duubo laba habeen buu ka ana oran lagu duubo calanka Soomaaliya waa maro la sameeyay calanka Soomaaliya waa maro la sameeyay ana oran kara hal lagu duubo maalintan dhinto laakiin waxaan ogahay inaan laba maalin igu sii jirin in laga siibayo dhamaanayo in uu dhamaanayo calankan baan ogahay laakiin xisaabta iyo waxaan geystay in ay iga horeeyaan laakiin idinku ma ogoodin waayo caawa haddaan qabiil ka sheekeynayo oo qabiil aan laxan saarayo laxan haddaan qabiil saarayo wallahi baa kuli 500 bay gudawan jirteen ma garan taas waa makhraanti badoonto waa haya cadeynteedii laakiin haddii nabi maxamed laga sheekeynayo waayo wiil yar baa arkay oo tiktok ka caaya nabi maxamed wallahi billahi tallah soo magac ilaahay marin ilaahay baan ku dhaartay xabiibkiina sallallahu alayhi wasallam wiil yar oo caynaya arkay oo 21 follow haysta 21 follow haysta sababtu ku haystana maxay tahay 21 oo qof oo Soomaaliya Kristian ma jirtoba sababtu ku hala maxay tahay waa nabiga oo caynayo oo soo gelinayo la soco diinta oo aflagaadeynaya la soco wallahi baan ku 21 buu haysta nabiguna caaya marna waa soo islaam marna waa nabi mali diin mali bal ilaahay baa idin ku dhaarshay Soomaaliya halkaas maraysan caaw haddaba aad baa idin salaamaya meel kasta joogtaan waa idin jeclahay laakiin waxa ku dadaashaan inaad nabigiina u helisaan diintiina inaad adkaysataan hadda waxa lagu socdo waa diintiina maaha Soomaaliya maaha magaca calanka buluuga maaha qabiilka waxa lagu socdo caalam ku xisaabtamayo diintiina in la tirtiro laakiin diintii in afka laga sheegto way fududahay laakiin in loo halgamo in loo dhinto in aflagaadada laga reebo way idinka maqan tahay bariya burca waxa maanta la qubay alaabihii Faransiiska imanay Turkiga la qubay caalamku dhan baa qubay sababta u qubayaan maxay tahay Faransiiska hala dareensiyo waxa uu yahay hala dareensiyo laakiin Soomaaliya way dareensiin weyd Soomaaliya way dareensiin weyday oo waayo iyadoo nabigeedii la caay bay iska qodriyaan gaxi qabiileed ka war farmaajo ka war khayra ka war ma soo noqonaya farmaajo ma soo noqonaya wallahi baan khayran janna idin geenin oo farmaajo janna idin geenin naar buu idin wadaa qabiilka aad farmaajo khayra ku taageeraysa naar buu idin wadaa calanka buluuga naar buu idin wadaa xaqiiqda idin sheegaya xaqiiqda waxay tahay ninkan alla aaminsanay
ninkaan rasuulkiisa aaminsanin ninkaan ficil lahayn eygaba bilaa ficil baa loo cadaaba ummadda soomaaliyeedna waxaa loo cadaabayaa bilaa ficil run baa rabta mise been bilaa ficil baa naarta u gelaysaan ilaahay ha idinka badbaadi anigu wax kale ay rahdo ma garanay ilaahay ha idinka badbaadi laakiin aniga waxaan aaminsanahay shakhsiyadayda inaan ku dhimanayo inaan diinteyda adkaysanayo diinteyda inaan jeclaan wax laga sheego nebigayga inaan waxba laga sheego laakiin idinku waxaad aaminsantihiin qabiilkiina inaan waxba laga sheegin calankiina inaan waxba la yeelin soo saas maa saas weeye marka aad baa idin salaamayaa ummadda soomaaliyeed waxaa idin leeyahay qabiilku hadduu idinla weyahay oo qabiilku waxaa idin leeyahay ya walle xisaab way dambaysaa xisaab way dambaysaa xisaabta lagu kala baxayo way dambaysaa adeer aaminsanow qabiil aaminsanow calankan buluugga aaminsanow dhiig dad wallaahi bilaahi tallaahi aniga labada calan maanta kan wax yar buu ii sokeeyaa oo dad muslimaa leh kan laakiin kristan baa leh kan muslim baa leh kanna kristan baa leh intaasuu ii sokeeyaa laakiin ma oranayo kan faransiis baa leh kanna itaali ee xaaya soomaaliya ma oranayo calanka quwadda leh ee awoodda leh ee baawarkiisa caalamku yaqaano waa calankan been idiin sheegi maayo wallaahi bilaahi tallaahi baa idin calanka caalamku yaqaano waa calankan calanka laga cabsado waa calankan calanka la aaminsan yahay inuu cid walba iska dhicin karo haddii laysu gaashaanbuuraysto hataa waa calankan sababta keentay maxay tahay sababta keentay maxay tahay sababta soomaali dhulka dhigay maxay tahay waa qabiil waa calankan waa qabiil waa calankan haddaba calankan wax midayn soomaaliya lama yidhaahdo calanka aan diintiisa difaacanayn calanka aan diintiisa garab taagnayn calankan diintiisa dalkiisa dadkiisa buu u taaganya calankan muxuu u taaganya bal calankan buluugga ii sheega muxuu u taaganya adeer calanka buluugga muxuu u taaganya shanta maxay u taagan yihiin shantii soomaaliyeed binaana shanta waxay u taagan tahay shantii soomaaliyeed shantii soomaaliyeed maxaa la yidhahdaa waa etoobiya oo la gumaysto waa etoobiya oo la gumaysto waa kenya oo la gumaysto waa jabuuti oo go'day waa waqooyi oo go'ay waa koonfur oo maanta leecleecaysa soo maaha calanka soomaaliyeed xidigta ku taalla maxay matashaa aaway muslimadii aaway muslimadii muslimadii aaway war idinkaa idin weydiinaya muslimadii aaway aaway nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam oo ummadda soomaaliyeed iyo ummadda muslimiinta u shafeeca qaadi lahaa hortiina kan lagu caynaya soomaa kaad daawanaysaan soomaa kaad fiirstaan soomaa kaad ku raaxaystaan soomaa kaad ku qanacsantihiin soomaa wallaahi bilaahi tallaahi inaad wax taqaanid maaha laakiin in aad dareenkaaga muujisid waa in aad dareenkaaga aad muujisid xabiibkaaga aad difaaci kartid u dhiman kartid maaha inaad wax taqaanid maaha inaad diinta soo baratid diinta intaad ka baratay oo ku camal fali kartaa laakiin adigoo isbahdilaya oo alle aan ku bahdilin oo gurigaaga jooga baa maanta waxaad bahdilan tahay diinta muslaamka ka bahdilan tahay oo waayo aniga haddana gurigaygaan ku jiraa yurub baan joogaa isma bahdilayo haddaan bannaankaa u baxo sharci loo maraa jira inaan mudaharaado inaan qayliyo inaan buuqo inaan calaamadaas saa ugu qorto meesha sharci baa ii banaynaya waxa jira baan sheegaya waxaan aaminsanahay baan sheegaya laga hor iman maayo laygu diidi maayo haye soomaaliya oo aan cidbaba ku weydiinin oo cidbaba kugu haysan oo cidba adeer bannaanka haddaad sheegada u seexatid iyo haddaad lugta taagtid aan cidba kula hadlay marka adeer ummadda soomaaliyeed waxaa moodaa adeer sacuudiga waa la gumaysanayaa waxaa haysta maraykan waxaa haysta faransiiska la sheegayo oo nabiga caynaya laakiin shacabkiisu waa xor waxayna muujiyeen jacaylkii u qabaan xabiibkooda maxamed sallallahu alayhi wasallam bay muujiyeen
وين هالين وين مظاهرات الصومالي محل لغوي محل برعو كلي لغوي برعا مسلم كله لي كلي ورما برعا مسلم كله لي برعا مسلم كله ين إلى قبل الصومالي وين نقاناي قبل كتب دير ميا مسلم كله لي ورهرجيسان لغا مظاهرات وربربران لغا مظاهرات ورمقدشان لغا مظاهرات ورقروان لغا مظاهرات ورسببتا جعيلك حبيبكي انه يدي موج نبي محمد صلى الله عليه وسلم حاجه بتقنا نبي محمد umadaada 73 dhibaat xanuun baan kaga qaadanaa nafta wuxuu yiri 73 hal umadayda oo qaada 72 aniga iga qaada waayo aaway nabigaas aaway ficilkiisa nabigaas jacaylkiisa aaway nabigaas aaway wuxuu idin faray wuxuu idin baray wuxuu idin ka tagay bari weydii shafaaca qaadaya waad aaminsantiin Soomaa waynu aaminsanahay nabi maxamed doornaya umadayda cadaabta ma galayso Soomaa saas ma sababta aad ugu hiilin weydeen maxay tahay sababta aad qabiilka ugu jeclaateen maxay tahay sababta calankan buluuga ee naarta ugu jeclaateen maxay tahay calankan jannada ma yaala calankan buluuga jannada ma horeeya bal ii sheeg warkana ma yaala kana ma yaaladii lagama helo jannada labada calanba ya sacuudigu laakiin shacabkiisu waxay aaminsan yihiin inay muslim yihiin gaalana inay waxba ka dhaxayn laakiin dawladdiisa sacuudiga waa la haystaa waa cabsanaysa laakiin ummadda Soomaaliyeed ma garanaya gaalada haysta ma Itoobiya haysata ma Kenya haysata ma garanayo marka aad baan islaamiya meel kasta joogtaan nabi maxamed waxaan ka dareemayaa inuu weli cilla yahay wax garaba uun lahayn waayo waxaad igu daawanaysaan 200 caawa 300 waa gaari weydeen waayo habeenkan qabiil ka sheekeynayo ama dad maagayo waxaad igu daawataan 500 600 wallahi ana arkay 600 idinku igu daawanaya sababta koos garashana anigu waa garanaya waayo sababta maanta Soomaaliya ugu mudaharaad weydeen sababta xabiibkiina ugu muujin weydeen wanaag iyo sharaftu idinka tagay iyo cisadu idinka tagay yaasiin blog ba qaadanaysaa niyo yaasiin blog ba qaadanaysaa maanta dhan habar gidir baa qoraysaa wajiga waxa ku qoran nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam marka ma rabo inaan qabiil iyo waxa ka hadlo haddii qabiilku ku buko mar kale inooga dhig ma garad hadda laakiin waxaan u taaganahay inaan nabigayga difaacdo nabigayga aan jacaylkayga u muujiyo intii awoodeyda inaan muujiyo waana muujiyey ilaahay in hayga aqbalo ummadda Soomaaliyeedna waxbaan u sheegay hadday ku iimaan qaadanayaan waayo de waxaan ka arkaa fiidiyowga wax daawanayaan ka arkaa waayo fiidiyowga haddaan qabiil ka sheekeynayo haddaan xumaan ka sheekeynayo caawa dhan way daawanayaan way sii sheer garanayaan iyaga isku dira gruubaday u diraan meeshaskii u diraan way la degaan soo saas ma laakiin haddii aan xabiibkooda ka sheekeynayo oo leeyahay Soomaaliyay sidan muslimnimadu maaha in afka ka sheegano maaha xabiibkiina u mudaharaada meel walba uga istaaga masaajidada gobolada meel walba xorbaatiin dawlad in la hadli karta malaha cid idin caburin karta malaha waxa Soomaaliya aan la isku caburin waa diintaada idinkoo diintiina aan ku caburin inaad nabigiina jeclaataan oo nabigiina u muujisaan oo bari aad aaminsantiin inuu shafaaca qaadayo haddana taa waa idin kala ahay waayo waxay iga muuqataa Soomaaliya waan ogahay xaaladeeda waxaan naga dakaftay marabne habar gidir buu caawna noo soo qorma qabiil baan ka hadlayaa war Soomaalidan waa aqaanaa waayo wallahi baan ku qabiil baa ku qafilan calanka buluuga baa ku qafilan war calanka buluuga ma rabo anigu run baan idin sheegaya ma rabo qabiil ma rabo nabi maxamed baan rabaa agteedana laguma maagi karo laakiin qabiilka dadka uu naarta ka celinayo waa sugaynaa dadka qabiilka aaminsan waa sugaynaa
ونيو كاشي سنادري أو نهبر قدير بيسوق قرية هبر قدير ماشي كهل مايو قبيل كهل مايو dadkaas inaan la shaqaysto ma rabo inaan iska saaro waan jecelahay meesheeda aan waxbaba igu jirinba waayo wanaag ima wado xumaan buu ii wadaa waxaan ka sheekeynayo ma gelayso hal mar nebiga kuma salayin muxuu marka sheegaya qof aan nebigiisaba ku salayin muxuu marka uu yahay muxuu maaha aniga agtida xogka maaha qofku haddaanu tukan walaalkaa maaha diintaadaa sheegaysa dhar lama xiran kartid cuno lama cuni kartid ما راعي كرت لما ساحيبي كرت قف قدانو شنت وقت تكن قف النبي جيس كسلينا معوب الشيء يا نادر كم غراض مركا حايدين الشيء ومدى الصومالية دي قبيلك يدين تكلا سارة قبيلك هايدين كتشرو لكن نبي جا فعل تاجرو هيلو بوباي السجو أو مانتا قف والبا والنبي وحيلaya ama aflagaadeeya meel looga xisaabinayo meel baa looga xisaabinaya laakiin waxa la eegayaa ummadii nabi ummatul maxamed aawe xagee jirtaa maxay qabatay maxay samaysay ummatul maxamed maxay nabi maxamed u qabatay maxay u samaysay ummadda nabi maxamed ummadda Soomaaliyeed waa ummadda nabi maxamed maxaa kooskarey inay maanta hal gobol hal degmo hal tuulo ay ka diidaan in nabi maxamed ficil muujiya barina waxa ay leeyihiin ummadii nabi maxamed oo noo shafaaca inta nabi idin diiday waa aragtay nabi aadan nabi muuse inta nabi diidaya oo oranaya aniga nabi aadan baa diidaya war aadankeenu ka faracnay baa waxa uu leeyahay aniga taydii baa i haysata taydiiba ay haysata hal maalin baan geed cunay geedkiiba oo laga saamaxay uu jannada joogo buu wuxuu aaminsan yahay in isagii la haysto aawe marka ummadii nabi maxamed uu u hadlayay aawe ummadii nabi maxamed aaminsanay maanta wax ficil ma laga waayo gaar ahaan weliba ummadda Soomaaliyeed wadamada caalamka wallahi waxaan moodi jiray markii hore nimankan Nigerianka ama nimankan Gambianka ama Senegalka ama carabta kale inay diinta ugu horeeyno oo diinta ku dhaganahay laakiin anigu maanta waxa arkay meeshiiba aan ka nimiba oo Soomaali ee degareedba oo maanta laga waayay hal degma laga helay gobolka Burco gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco baa laga helay wax umudaharaada wax muujiyaba Burco maxay samaysay Burco guryahooda ma dumin Burco lamiyada ma xirin Burco dagaal ma qaadin cid ma dilin laakiin ficil bay samaysay ficilka Allah u diray idinkii laakiin waa ka hurdeen waa seexateen Faransiiska waa laga mudaharaaday hal qof oo Soomaaliya la waayay oo mudaharaad ku jira Faransiiska boqolkiiba 45 waa muslim wax garab sii waay dadka muslimiinta wax garab sii waay waxa la rabaa in la wiiqo waa muslim waxa nabiga loo caynayo waa ummadda Faransiiska degan waa ummadda u dhashay sababta adigu marka muslimadii aad uga gaabsay maxay tahay ma sheegi kartaa waa maya ma sheegi kartid marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed diintu in afka laga sheegto maaha inaan idhaahdo muslim baan ahay inaan idhaahdo muslim baan ahay inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun allahu akbar wallahi billahi tallahi diinta intaan ka arkay oo ka bartaba ugu filan laakiin ummadda Soomaaliyeed waxa moodaa qabiilka intay ka barteen inay ku filan tahay intay qabyaalada ka barteen inay ku filan tahay intay calanka buluuga ay ka barteen inay ku filan tahay inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun wallahi aadan ugu xumaa aad iyo aad wallahi waa dareemay waxaan dareemay in ummadda Soomaaliyeed ay cilla yihiin in ayna aakhiraba xasuusnayn in ayna wax dhiiga lahayn qabiil waa igu hiilinaya qabiil way igu taageeraya qabiil way igu jeclaanaya qabiil maalintan ka sheekeeyo kuwa badan baa i taageeraya qabiil reer hebel markaan maayo kuwa badan baa i jeclaanaya laakiin nabi maxamed dartii alla dartii labada qof isku jeclaada baa alla u jeceliya alla dartii ma jira Soomaali laga heli maayo laba qof oo alla dartii isku jeclaada laba qof oo nabi maxamed inay difaacaan isku raacay ma la helaya boqol qof oo nabi maxamed inay difaacaan
oo hadal ku difaacaan ma la helaya waa maya ummadda soomaaliya lagama helaayo laakiin waxaa laga helayaa 100 qof ama 10 qof oo qabiil ku weerartay qabiil u dagaal taga baa la helaya ma la helaya bal masaajidada waaweyn baa leedahay soomaaliya meel aan masaajid ka dhisna ma jirto meel aan culimo ma jirto kanay wada aaminsana haddaba kan iyo kan markay noqoto labadan calan baa isba bardhigaya labadan calankana turki baa leh calankana soomaali baa leh calankan wuxuu u taagan yahay siyaasigiisa shacabkiisa inay daafacdaan diintooda dalkooda dadkooda maxaa kuskiray soomaaliya dal ma daafacto waa loo daafacaa diin ma daafacato oo nabi maxamed oo la caynaya daawanayaan dal ma haystaan oo dalkoodii waa la haystaa haye waayahay soomaaliya marka xaggee u bad qabto war diinta isiga bata war ilaahay ka baqa run baan idiin sheegaya ummadda la halaagayo ha noqonina ummadda maalinta ay dhintaan oranaya laa ilaaha ila allah laa ilaaha illa ilka waa ka baqaya tiraan qabyaalada calanka inna la adri ba oranaysa la adri calan baan lahayn la adri markii allah yaale allah sheeg la adri diintaada sheeg la adri wallahi waa idin sugaysa oo billahi waa idin sugaysa oo waa xisaab adag war qabrigeedin oo adkaysan karin haddaan foo soomaali idinku sheegayo hataa u qaadanina inaan anigu wax bartay oo diin soo bartay diin intaan bartaa igu filan intaan ku tukadaa igu filan intaan ku aaminsanahay baa igu filan laakiin dadka diinta bartay oo diinta aan waxba u aabayeelin oo aan jacayl u hayn oo nabi maxamed aan u hayn wallahi aadan ugu xumay marka ummadda soomaaliyeed ay aadan jeclahay sii sheergariya barnaamijka falow dhaha barnaamijkaas inta ay ka jawaab celinayaan intaan ka wadaya intay ka jawaab celinayaan faransiisku uu ka leeyahay nabi maxamed gafka u geystay raali gelinayo wallahi billahi taala intaan ka wadaya ummadda soomaaliyeedna inta ay samaynayso inay mudaharaado inay kacdo inay dhiigga isku furto intaan iyana ka maagaya run baan idiin sheegaya wallahi billahi taala baa intaan idinka maagaya waxaan rabaan leeyahay kaana ma hortiinaan ku gubaya calankaan iga celin kara yaa iga celin kara calanka kan iyo kan waa gubaya labada waa gubaya igama celin karta kan aan gubaya kana waa gubaya kana gurigaan soo dhiganaya waade kanaan guriga soo dhiganaya xaqiiqda idiin sheegaya aadna idin salaamayaa